الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته والتزام أمره وحكمه واحذروا من مخالفة شرعه. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى nimcadiisa oo adoomadiisa uu ku nimcaystay mid ugu weyn waa diinta islaamka. Ilaahi subhanahu wa ta'ala ummadan muhammadiyada ah wuxuu u dhameystiray diinteeda, sharcigeeda, wuxuuna ka badbaadiyay inay dhunto. Ilaahi subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku yiri al-yawma akmaltu lakum diinakum. maalintii sagaalaad oo Carafa la taagan yahay, Nabi sallallahu alayhi wasallam xajkiisii ugu horeeyay kiisiina ugu dambeeyay ahaa. Nabi sallallahu alayhi wasallam hal mar ayuu soo xajiyay wiligiisaba. Xajjatul wadaa' waa xajkii dadka uu ku soo gootinay. maalinkaasi wixii sharaa'ic diinta ka dhignaay waa la dhameystiray. Ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala maanta waxaan idin dhameystiray diintiina, nicmadeedana waa idin ku dhameystiray. diinta islaamka kaligeeda ayaana idin ku ogolaaday inaad diin ka dhigataan. qofkii diin kale ama arimo kale diin ka dhigta Ilaahay ma ka aqbalayo. oo Ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri waman yabtaghi ghayra al-islaami diina, qofkii diinta islaamka diin aan ahayn diin ka raadsada falan yuqbala minhu, ma laga aqbalayo. wa huwa fil aakhirati min al-khasiriin, maalinta qiyaamana wuxuu kamid yahay dadka khasaaray ileen diin ma wataba. zamankan la joogo oo fitnada aad iyo aad ay u badatay, waxa soo baxay dad ku andacoonayo sheeganaya hadana in diinta islaamka manhaj lagu dhaqmi karo inaysan ahayn oo dhameystirneen. qofka diinta islaamka ku dhaqma ama qaata noqonayo qof xirxiran, qof casriga ka dambeeya, qof adduunka aan la qabsan karin, qof adduunka aan la jaan qaadi karin. dad soo baxayo, dad oo noocaas ku andacooday ayaa soo baxay. Ilaahi subhanahu wa ta'ala diinta islaamka wuxuu ka dhigay diinta ugu weyn ee adduunka. maalinkii Nabi sallallahu alayhi wasallam loo soo dhiibay ilaa ay maalinkan dad baa islaamay. nabina ma la soo dirin, cid u tagayso soo islaama dhaheysana ma leh, ee diinta islaamka ayada burhaan gaar iska wadata. Ilaahi subhanahu wa ta'ala bani aadamka wuu abuuray, wuuna karaameeyay. oo Ilaahi wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala walaqad karramna bani aadama. Ilaahi wuxuu abuuray makhluuqaad fara badan, laakiin wuxuu ka doortay bani aadamkana wuxuu ka sii doortay qurayshna wuxuu ka sii doortay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. bani aadamka waa karaamaysan yahay. walaqad karramna bani aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri. bani aadamka Ilaahi markuu karaameeyay diin islaamna wuu siiyay oo ku dhaqmo. diinta islaamka waa quruxda qofka bani aadamka. hadaba hadii diinta islaamka adigoo sheeganaya hadana akhlaaqdaadii iyo dhaqankaagii uu noqdo dhaqan reer galbeed, wa huwa fil aakhirati min al khasiriin, soo galaysa. diinta islaamka saxaabada dadka way jeclaysiin jireen, dhaqankoodii gaalada way jeclaan jireen, diintu way ku soo gali jireen. nin la yiraahdo Hurmuzan oo gaal ahaa ama muslimiinta weerar ku qaadeen xilligii Umar ibn Khattab, nolol baa lagu soo qabtay. saxaabo fara badan uu laayay. Bara ibn Malik kamid yahay, Anas ibn Malik walaalkiisa ka weyn. saxaabo fara badan oo la yaqaano ajilla ayuu dilay. waliba wuxuu sameeyay inta laga xoog badiyay ayuu wuxuu isku soo xiray guri dabaq dheer ah oo darbi dheer leh. darbigaas wuxuu ka soo raariciyay silsiladahana waxa ka taagnaa barihi kawaanka oo kale oo kulul oo dab laga soo bixiyay. inta soo tuuraan saxaabiga haduu meelahan ka galo kor ayay u jiidayeen ilaa in naftii ka baxday saxaabigaas uma soo dhiceen. dhimasho xun ayuu dilay saxaabada qaarkood. ninkii la soo qabtay wuxuu Umar hal iigeeyo xukunkeyga Umaran ku go'aa uu Umar inuu xukmiyo. waa la keenay Umar la soo horfariisiyay. Umar oo Bara ibn Malik iyo saxaabadii la socotay ninkaana dilay, gacantaana ku soo qabanay san yeelna. Umar wuxuu yiri xukunkiisa ha ii dambeeye dharka laga soo bedelo horta. dharka wuxuu watay oo madaxda dahab iyo taaj iyo saaf watay, dharkan ka soo bixiyo dhawrta. dad caadi laga soo dhigo.
dharkii caadiga loo soo geliyay laba go'a loo soo xiray Umar la soo horfariisiyay Umar wuxuu yiri hadal maanta gacanta ku jirta maxaa sheegi kartaa xujo wuxuu yiri Umarow aniga gaala ahaan jiray oo adna gaala ahaan jirtay waagi gaalada aawada ahayn oo dhahay waana soo weerari jirtay anna waa idin soo weerari jiray oo dhahay tirayari marka yaraan jirteen waa idin ka raayin jiray mar walba Umar aan waa idin ka raayin jiray oo dhahay maanta waxa ii soo dirtay oo dhahay ciidan yar way ijibiyeen anigoo noole soo qabteen oo yiri ma taqaana oo dhahay sababta ay u soo qabteen aqeedo iyo iimaan leeyihiin oo dhahay tiram ku dagaalamaan saas ninka dhahay gaal waay wuxuu arkay dhaqanka muslimiintu arkay waa soo qabteen oo yiri maanta markuu warka uu dhameeyay Umar wuxuu dhahay warkaas dhanka soo tag anigoo ku dilaa oo dhahay adiga wax kala dan ku dili waay xitaa waxaan ku dilaa oo dhahay saxaabada aad dishay igooda markaas wuxuu yiri biyaan rabaa biyaha la isiin biya loo dalbay waa loo keenay biyihii waa iska daadiyay Umar wuxuu yiri biyaha uu ka daatay dil iyo dhimasho yaan isku dil iyo on yaan isku darinay biyaha loo keen mar labaad wuxuu Umar biyaha dil ii keeno intaan ka cabay ma sugay sidoo ama dilay oo dhahay waa ku sugaa oo dhahay biyaha ilaa ka cabaysan ku dilay oo dhahay biyuhu qaaday oo iska daadiyay mar labaad ani biyo ma barabin oo dhahay intaan la rabay ilaa biyo aan ka cabay ma li dilay ma aha biyo ma cabay baan oo dhahay waa badbaada Umar wuxuu yiri waa khayaantii oo dhahay laakiin ma ka yeelay oo dhahay waa ku dilaa aniga wax hartu sheeg oo dhahay Anas ibn Malik ma istaagnaa walaalkiisii Umar wuxuu yiri ninka ma taaban kartid oo dhahay maxaa yeelay balan cad aasisay oo dhahay waxa tiri ilaa abiye ka cabtid ma ku dilay saxaabada meesha joogeen dhan waxay dhaheen runtiisa waa ma la taaban karo sababta ay u badbaadinayaan jacayl ay u qabaan ma aha ee diinta islaamka noocaas ah diinta islaamka balan u yaqaana qofka laga balan qaado in la oofiyaal rabaa nabi sallallahu alayhi wasallam markuu uu yiri maka markuu soo galay gaalo sagaal ka badan ayuu wuxuu yiri nimankaas meeshii lagu arko lagu dilo xitaa kacbada dhexdeeda hadii ay ku jiraan la arko hala dilo maka dhexdeeda cid lagu dili karo laakiin intaas qofood uu magacooda sheegay Ikrama ibn Abi Jahl kamid ahaa oo gadaalka islaami doono dadna waa la dilay dadna magangeliye keensadeen dadka magangeliye keensada waxa kamid ah Uthman ibn Affan wiil oo isku naas soo nuugeen Uthman uu yimid wuxuu yiri Uthman oo nabiga ii geeyay sallallahu alayhi wasallam maanta waa la idilaa oo aniga hadii kale Uthman nabigu uu keen ninkii wuxuu rasuul Allah ninkan walaalkeyga waay isku naasan soo wada cabnay darteeda loo daayo maganteeda ku jira nabi sallallahu alayhi wasallam kii maganta saxaabiga soo galay uu deen jiray markaas nabi sallallahu alayhi wasallam uu ka aamusay ninka Uthman uu keenin xun u ahaa markii oo la deey karin nabi waa ka aamusay sallallahu alayhi wasallam Uthman mar labaad uu ku celiyay rasuul Allah wuxuu ninkan ii daayo nimankan inta taagan fakfakad waaye ii daa ninkan saddex mar markuu ku celceliyay mar afraad nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu haye waa ku daayay wado markay baxeen nabi sallallahu alayhi wasallam idinku wuxuu yiri waa agtaagneeday ninka maxaa u dilweyseen oo dhahay maxaa dhacay oo aniga hadalkii hore aan jeediyay wili ma kalaabanin Sooma waa aamusanahay hadalkan kii hore way oo ahaa ninkan hala dilo Uthmaana keenay hebla keenay ma waa soo galay waa dili laheedeen uu yiri maxaa u dili weyseen rasuul Allah anaga waa ninka waru ku haayay waxaan isdheheynay ama nabiga ogolaada intaan ogolaanin ka hor dili laheedeen wuxuu yiri ninkaas wax ma ka dhihi laheen waayay rasuul Allah maxaa xitaa uu baaqi weys ha u dhiibis galaninka nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri aan wax ma khayaano dhahay qofka dhabarkan ma ka toogto hadii la dilaayeen hala dilo idin dhaha hadii la daaynaayna hala daayaan dhaha diinta islaamka waa diin dhameystiran dadka dhahay diinta islaamka ma lagu dhaqmi karo ma waa nusxaan waaye iyo ma jiro diinta islaamka waa dabeecad dhameystiran ninkii Anas ibn Malik markii uu is dhahay Umar wuxuu yiri waa ku daayay laakiin waxa fiicnaan lahayd in islaamto waa islaama oo dhaafur musaan shahaadteenku meesha ku qabtay Umar wuxuu yiri nala joog biil baan ku qoreena diintan waa lagu baraa waayahay oo dhahay laakiin biilka aan ku sii doono Umar biilkii xiligii madaxweynaha ahayd ma aha oo dhahay biil yar lagu siina ugu meeshan lacag badan ma jirto wuxuu muslimiintu waxay qabaan qabaa wuxuu yiri marka dambe Umar wuxuu soo jeestay Anas wuxuu Anas soo wiligeyga tan oo kale ma arkin oo dhahay diin tan ka fiican ma arkin maxaa dhacay oo dhahay qof aan walaalkiisa dilay oo idahay hadana qofka ma la taaban karo balan baa laga qaaday diinta islaamka laga helaa oo yiri لمثل هذا أسلم الناس وده أرنتان درتهذا أدتك سو إسلام عيان وده أديك وإن الدين تدك أجعل السياسة أديك مسلم كأدي الدين تدك عررسيت خوفك قال كأ مسوا إسلامين كرتيت ما يوعي كلية أذاب الدين تك أديك عرر أهبا
ilaahay subxaanahu wa tacaala faraa'iduu soo dejiyey waajibaaduu soo dejiyey xuduuduu sameeyey qofkaan ku xadgudbi karo ma dulmin karo hadduu dulmiyo waa laga aarayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay doorasho qofkuu rabo nebiyuu ka dhigaya qofkuu rabona caadi u daynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkuu soo jeediyo muslimiintu inay ka tashtaan ama in loo shuureeyo ma ba'ahba ilaahay wuxuu subxaanahu wa tacaala innamaa kaana qawla almu'miniina idaa ducuu ila allahi wa rasuulihi mu'miniinta waxaa laga rabaa markii ilaahay iyo rasuulkiisa ay hadlaan ay amar soo jeediyaan liyaxkuma baynahum si dhexdooda uu u xukmiyo maxay leeyihiin waa ka tashanaynaa mooshinanka keenna may dhahayaan maya an yaquuluu samicnaa wa atacnaa ilaahu waa maqalnay waa qaadanay war saddexaad ma lihid ma la qaadan karo ma la yeeli karo ma jirto diinta islaamka xuquuqul insaanka wuu ilaaliyey qofku xadgudbi karta male qofkii qof dhaca diinta islaamka shuruuc buu u samaysay qofkii qof caaya firi qofaad caaysay qofka caayda aad ku caaysay haddii caddeen aad u keensan weyso waa lagu ciqaabaa leedahay waa lagu ciqaabayaa maxkamad bee jirto ninkan waa gagardaran tahay daalim baa tahay qofkan waad caaysay zaaniyaad ku sheegtay xaaskaaga waxaa ku sheegtay zaaniyad caddeenna uma haysid waa kala tegaysiin adduunka haddii ayada ay ka soo hartayna ma guursan kartid سورة النور إلهي محويري والخامسة أن غضب الله عليها ولا صوت ترنا شن مرة دارنه ومرخاتي مهيستيت حاسكا waxaa ku sheegtay in zaaniyad tahay ilmaha meeshka dhaxdashana ayada wadaneys waxa soo sharaa'ic diinta islaamka laga helaa maxaa yeelay nabi sallallahu alayhi wasallam kila soo diray ilaahay wuxuu ku sheegay ya'muruhum bil ma'ruf dadka wuxuu faraa wanaaga wayanhaahum 'anil munkari dadka munkarku ka reebaa wayuhillu lahum at-tayyibat waxyaabaha fiicanna xalaal uga dhigaa ويحرم عليهم الخبائث وحياوا حنحنا حرام كدغا دينت اسلامك وحياوا حلالك او شيغتي way tirakootay waxyaaba xaaraanta sheegtay xalaash lama sheegin sheegan waa xalaal sheegan waa lama dhihin waxaan loo dhihin xalaalku waa furan hadii mar wixii xaaraamka ah lagu sheego uu tirakooban yahay inaad ka hartaal rabaa oo xalaash aad qaadato ninba sheekh u yimid wuxuu yiri sheeqow sigaarka lacabaya xaraam miyaa u dhahay sheekh wuxuu yiri ha xaraam waay daliil كانوا له آيات قرآن لها سيجار ملعبي كرو حديث لها سيجار ملعبي كران ربا مربتا ويرها قرآن كسيف عموت قاناها آيات دان أسوقات الشيخ والعيري النبي مكيل صادري ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وحي في عن إنه حلال كدغو وحي حنا حرام إنه كدغو حتى بعدين كويدينا ويري سيجارك ما وحو سوغلا وحياوا في عن أم وحياوا حن هذه قرآن كجارو ده wuxuu sigaarka hadaan fiiriyo inta liis ii qoran sigaarka waxaan gelinaa oo dhaa qaybta xun maxay dhaqaalaha wada dagaal asna sigaar uu cabaa ogow asa isku jawaabay wuxuu dhaqaalaha wada dagaalama caafimaad wada dagaalama dadka ku dhibsanaayo sigaar marka cabaysid ina banaanka baxdo waaye intaas oo dhibaato marka isku daro khabaa'ifan gelinaa hadaba khabaa'if hada geliso khabaa'if maxay isku raacnay inuu yahay xaraam soo ma aha ma ogashaada xaraam inuu yahay xaraam waayo oo dhahay baakad sigaar soo bixiyay sheekhu ku horjibiyay wuna tuuray xurriyad qofku wuxuu leeyahay xur baan ahay wax walbaan sameey karaa xurmatihid فالحرية الحقيقة هي العبودية لرب العالمين هدارت إنا أجاتو حرن ماذا صحراء وإنا إله الدون أهاته الدون إله داؤتهاي حرواتهاي ابن القيم حيري هربوا من الرق الذي خلقوا له الدون نمذي الله أبوري وإلهي أبوري إني الدون أنقذان ويكعررين فقبلوا برق النفس والشيطان وحي أقولادين إن نفس الشيطان الدون وهذان إله أبوري الدون إنقكر إلهي إيتكو حلال سمي حرام كتك توس ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا انت يا لقاوي والله حد سوماها الدون الشيطان نفحا أتهي الدون حرمته حر هذا وهن قفك حرك وحل لو يقانا وحل بينو سمين كرو هذه أوامرك كدل صارن أو لويري حرام فيرين كرتت وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مؤمنين توحد هذا إن له هذا اللعبة جبر أركتي أقابا إن ده اللعب فاكتهر إن ده إكاجد بعدين ما هي كلا يحو هكون نقون المرلبات شدانك وكولي النقو
waa shidan tahay si fiican u fiiri nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay gabadha markay soo socoto inuu xabadku ka fuulay sheedaanka uu dheedheersiinay meeshaas markay ku sii dhaaftana gadaal u soo booda hadana gadaal dheedheersiina ninkii waxa arkay 24 saac jidka fadhiyo tan fiiri lama ogolo ninba maalin waxa irniyo aragtidan naagaha la fiirinaa xaraam waa iska dhaaf markaas wuxuu yiri aragtida koowaad dambi maaliyo qoraa maya wuxuu yiri tan koowaad maba ka soo jeesanay anna u dhaamarkii gaalkacay wala gaalkacayaan joogi waxa xasuustaa ninka hamilka oo shaqeyneen waxa aragtida koowaad dambi ma kulihid waa aragtay ka soo jees hadaan soo jeesanin kabar iska wato hoosheeda tii koowaad lama leeyahay xisaabayo u dhaay ma lagu xisaabayo ilaahay ma loo gooyn karo waa aragtay ka soo jeesa lagu yiri ma waa iska haysana cid ka yeelaysa male awaamirsana ku dul saaran munkar marka aragto maxaa waajibkaaga ah dhamaanteen waajib anaga saaran qof walba muslim oo nool yaani marka munkar aragto culumadii ma loo waco hadihin shaqadan shaqo anbiyo waay anbiyadii waa dhinteen anaga noo taala adiga qofka inuu ka qaato qasab ma aha walaalo waxa xaraam waay ka leexada ilaahay ka baq bari ma ku qabsanay ninkan maxaa ilaa bari maxkamadda ilaahay kugu dhigaa wuxuu leeyahay ninkan way arkay markaan arimahan sameynay muxuu iga celin waay taas lagu maxkamadeena aadina nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dad wuxuu soo qaato saale dad baa doon soo wada fuulay oo dhaay safar ay rabaan markab waaye laba dabaq waaye waqti aan siibay sameysteen qorituur ay sameysteen qolana kor ay heleen qorana hoos ay heleen waa la safray badiyaa la galay kuwa hoos markii biyo ay rabaan inay kor fuulaan leeyahay biyo ma haystaan wax ku dhaqdaan maxay ayaga meesha way ka xiran tahay inay kor fuulaan kuwa koraa biyo soo ororto mar walba biyo keedna way haystaan mar walba kor ay fuulayaan biyo soo qaadanayaan way tashteen shirey qabteen waxay dhaheen anaga mar walba dadkan kor maxaa u dhibeynaa waxa u fuulfuuleena biyaha anaga u dhowba badda hadii inta la hal alwaax aan ka soo bixino biyo kale iska arag way balbaliyo noqonaa kuma fikirin hadii qorigan ay soo bixiyaan badda inay soo galayso doontana ay qariqmeys nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri kuwa kor hadii nimankan hoose ay iska daayaan ay dhahaan waxa rabtiin sameesta soo bixiya qorigaas biyo hela doontan way gadoomeen hadii gadoontan yaa dhimanayo kuwa hoos kaliya kor iyo hoos waa la baabaa laakiin haday qabtaan warniyo waxaan naga daaya biyo soo galaaye anaga biyo idin siinayno najow jamiica kuwan waa badbaadayaan taas waxay la mid tahay munkaraadka iyo fisqiga arkaysid hadaa ka hadli weyso ciqaaba imaanayo cadaab markuu yimaado kiif fiican iyo ku xun wal cadaaba wal isku qaada kulligooda hala dhaafay male nabi sallallahu alayhi wasallam Aisha uu sheegay wuxuu yiri Aisha cadaaba imaanayo dad oo dagaal u soo baxay idad harayba kulli wal isla baabiina markaas Aisha waxay rasuul Allah si amal kuwan khayr u soo baxeene kuwan khayrku way ka hareene maxal isku wada daray kuwan way ka hadli waayeen Soomaa waa isku daraa hadhow aakhirama kala yimaado qof walba niyadiisa lagu soo saaraa adiga hadii waxaan la sameeyay raali ka ahayd xitaa aadan sameyn jirin laakiin raali ka tahay guriga adaa sameecadii keentay guriga habeenkii jaama lagu dheelaa falaashka adaa baxay studio tagay heesak soo buuxinay waa keenay seelayahay waa dhibeen kuwan hadii kale wax ma baranayaan alsu taagantaad heesiya u shiday qolka gashay waa seexatay dambiila ugu adiga waay ay qiyaama inta la soo gaarin adoo soo istaajinaaba maxaa yeelay adiga aad u soo hor qabtay وناجي أنك شخين ولا ليال صلوا وسلموا على نبيكم المختار وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه حيث قال عز قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم آمنا
آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.